Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hooyo waayeel ayaa waxay tiri waxaan dhalay 3 wiil, saddexdoodiina waa ay guursadeen. Waxaan booqasho ugu tegay wiilkayga weyn gurigiisii. Xaaskiisa ayaan ku idhi ii keen biyo weyse qaad ah. Markay ii keentay ayaan ku weyse qaatay waana tukaday. Intii soo hartayna waxaan ku shubay meeshii aan ku seexday. Iidaan u yeeray waxaan ku idhi halkan ayaan ku kaadiyey waana xaalka waayeelada. Markaas intay igu qayliso canaanatay igu tiri dhaq oo qallaji. Anigana waan dhaqay waana qallajiyey, caradeediina waan qarsaday. Maalinkii xigtay waxaan aaday wiilkaygii dhexe gurigiisii. Sidii oo kale ayaan sameeyey. Xaaskiis intay timid aad igu qaylisay. Wiilkaygiina waa uu yimid ma uusan canaanin, anigana qalbigayga ma uusan hagaajinin. Maalinkii saddexaad ayaan waxaan aaday wiilkaygii ugu yaray gurigiisii. Sidii oo kale ayaan sameeyey. Subaxii markii la gaaray oo shaaha ii keentay ayaan arrintii u sheegay. Markaas yiri hooyo dhib ma lahan, in badan ayaan ku kaadinay firaashadiina iyo dharkiina anagoo ilmo yaryar ah. Waxaasna dhib ma lahan, aniga ayaa dhaqayo hagaajinayo. Waxaan aaday suuqa, lacagteedii ayaan ku soo gaday dahab. Waxaan u yeeray saddexdeedii wiil iyo xaasaskoodii. Qisadii ayaan uga sheekeeyey inaan meesha biyo ku shubay kaadi aysan jirin. Waxaan u sheegay in dahabkan aan soo gaday aan siinayo xaaska wiilkayga yar. Cimrigayga inta ka dhiman hadduu Ilaahay cimri dheer i siiyana ay tahay qofta aniga aan la noolaan doono. Markii khabarkii maqleen aad ayay u naxeen, waxayna la noqotay la qaadan waa. Qisadan waa qiso cajiib ah, waana qiso aad u xanuun badan. Fadlan taa ka shii qisadan like saar. Mahadsanidin. وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.